mararka qaarkood mid aan hore loo taaban ayaan anigu bacda ka furay waxaan u maleeyaa inuu barakoobay oo aad loo kareystay travel agency-yadana waa ninkii koowaad waxaan u maleeyaa travel agency koowaad ee sameeya multi service ka noocaas baabuurtan koreynaana runtii waa baabuur casriya waa baabuur model cusuba baabuurta noo diyaarka runtii waa baabuur aanu maintenance dhameystiran ku sameeyno oo check up aanu ku sameeyno bismillaahi wa ala barakatillahi allah barakeeyo meherada caawa halkan waxaan u joognaa inaanu xafiis cusub aan ugu bishaareyno dhammaan macaamiisha ku xidhan shirkadda Kaafiye. Kaafiye waa shirkad runtii ballaaran oo isugu jirta bixinta adeegyada qaybaha kala duwan ee bulshadu u baahan tahay. Adeega ugu weyn ee shirkaddu majorka ay qabato waa car rent, waa inaan baabuurtan koreynaa. Baabuurtan koreynaana runtii waa baabuur casriya, waa baabuur model cusuba. Baabuurta noo diyaarka runtii waa baabuur aanu maintenance dhameystiran ku sameeyno oo check up aanu ku sameeyno. Waxaanu koreynaa muddooyinka kooban iyo muddooyinka dhaadheer labadaba. Runtii waxaan ugu bishaareynaa macaamiishii hore nooga adeegatay iyo macaamiisha cusub ee xafiiska soo booqan doontaba inaanu idin diyaarnay baabuur cusub hadday tahay kuwii faamiliyadu u baahnaayeen 7-seater-ka hadday tahay baabuurtii kale ee safarada lagu gelayay ee dalxiisyada goobaha dhaadheer lagu tagayay hadday tahay kuwii magaalada gudaheeda waxaan ugu bishaareynaa guud ahaan customer-ka dibadda ka imanaya ee qurbaha ka imanaya inaanu u sameeyno free pickup oo airport-ka ka soo qaadno oo diyaarino adeeg dhameystiran shirkadda anigu laftaydu macmiil baan u hayo marmarka gaarigu maaragtay iga xumaado cidda koowaad ee soo garaaca waa Maxamed ama cid kale ay igu soo xiro ama isagoo ha ii helo mararka aan baabuurtooda isticmaalayna runtii mar walba baabuur cusub oo mararka qaarkood mid aan hore loo taaban ayaan anigu bacda ka furay waxaan u maleeyaa inuu barakoobay oo aad loo kareystay caawana maaragtay haddaan noqday qofkii xariga ka jirayay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka dhigo meherad lagu bulaalo oo lagu barakoobo oo maaragtay barwaaqowda oo profit iyo macaash badan hesha oo maaragtay inta yada xaadirinta ah ee maaragtay ka soo xaadirtay iyo inta kale ee maqli doontaaba maaragtay ay marxaati ka tahay in Maxamed ilaahay maaragtay u barakeeyo oo ducada maaragtay aamiin aan leenahay horta meherada ilaahay baariko maadaama maalmo qaaliya lagu jiro meherada oo ducaynana inuu ilaahay meherada u balaariyo Maxamed arsaaq xalaalna ilaahay ka siiyo aase diyaarad ahaan runtii aad baan ugu faraxsanahay service-ka noocani multi service baa la yiraahdaa dunida oo dhan waa mid ka jira waxaana ku tusaysaa caasimaddu in aad u sii korayso airport pickup-kii qofku free ku helo at the same time markuu diyaaradda kasoo dego gaarigiisa loo diyaariyo hotelkiisa loo diyaariyo travel agency-yadana waa ninkii koowaad waxaan u maleeyaa travel agency koowaad ee sameeya multi service ka noocaas Maxamed anagu waxaan isku baranay gawaaridu mar isku baranay anagoo aqoon u gaadhiyaan u baahan oo qolo dibadda ka timid marka hore waan soo dhaweynayaa shirkaddan Kaafi Car Rent waxaa la Allah barakeeyo Allah ka dhigo mid lagu maxaan ku raacay intifaaco ana ku hadlay magaca marka Ethiopia Airline waxaan baran qaadnaa haddii la yiraahdo inaan si dhow ula shaqeyno soo dhaweyno marka offer gaarna runtii aan siino waxaan leeyahay Allah barigo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in laygu marti qaado munaasabadda xarika jarka xafiiska cusub ee Kaafiye shirkadda in badan baan macmiil u ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii horumarka ay gaadhay ee u soo kordhay waxaan ugu ducaynayaa in inta ay ka badanba uu Ilaahay u fudaydiyo waxaan kaloo uga mahad celinayaa shirkadda iyo qaasatan Maxamedba in ay nagu aaminaan hantidooda oo maxay ahayd tooy waliba price macquula ay naga karayaan aad iyo aad baan bogaadinayaa waana u ducaynayaa shirkadda